بسم الله الرحمن الرحيم. barnaamijyadeena hore waxaynu kaga waramanay barnaamijkii ugu dambeeyay hababka uu islaamku u koriyo u kobciyo akhlaaqda. waxaan waxyaalaha ugu muhiimsan islaamku akhlaaqda ku kobciyo waxa kamid ah cibaadada. qof kasta oo cibaadadiisu badan tahay marka uu dhaqankiisa kale ee wanaagsan uu ku dadaalo qofkaasi wuxuu kamid noqdaa bulshada dadka ugu akhyaarsan ayuu kamid noqdaa. marka labadaasi waa inay wada socdaan. dhibaatooyinka dadkeena haysta waxa kamid ah waxaad arkaysaa qof cibaado wanaagsan oo dhaqan fiican cibaado wanaagsan masaajidka safka hore ku jira laakiin dadka laba eri aanu dhex mari karin markuu bulshada soo dhex baxo dhib fara badan bulshada ay dhib badan dhexdooda marto. marka akhlaaq wanaagu wuxuu kamid yahay waxyaalaha jannada lagu helo hadduu doono qofka cibaadadiisu ha koobnaato laakiin dhaqankiisa wanaagsan waa ka nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadh kamid ah dadka xun oo wada marso ay haraadan aragtay akhlaaq wanaag baa ku kalifayna aygii ay markaasi dhaqan fiican bay samayso ay haraadan bay biyasiis dabadeedna ilaahay waa u dambi dhaafay waana u mahadnaqay jannana waa la geeyay. marka xadiiskaas muxuu noo tilmaamayaa akhlaaqdu waa mid kamid ah waxyaalaha jannooyinka lagu helo uguna waaweyn. marka salaadu horeyna usoo tilmaanay barnaamijka horeyna kaga soo hadalnay marka ilaahayna wuxuu inna salaata tanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar. salaadu waxay diidaa xumaan oo dhan akhlaaq xumo oo dhan bay kuu diidaysaa. maxaa kaloo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada markuu xidho waxyaaluhu odhan jiray waxaa kamid ah uu ku furan jiray allaahuma hadinii ilaahow igu hanuuni liaxsani alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan igu hanuuni laa yahdiha liaxsanihaa ilaa anta. cid dadka ku hanuunin kartoon adiga hayni ma jirto. markaa salaadaabuu ku furfuran jiray nebigu ilaahow akhlaaqda wanaagsan igu hanuuni adiguma dadka akhlaaqda wanaagsan ku hanuuni. marka maxaynu halkaa ka garanaynaa cibaadadu tusaalahaan salaadu inay markaasi kamid tahay waxyaalaha qofka akhlaaqdiisa kobciya inay kamid tahay. soomkaa lamida ilahay muxuu inoogu yihi kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. taqwaa laga helaya. taqwaduna maxay dhisaysaa insaanka jiritaankiisii oo dhan oo akhlaaqdiisii ay ku dhex jirto ayay dhisaysaa. sakadii baa kamid a. marka waa mid kamid a cibaadaadku waxyaaluhu islaamku akhlaaqda uu ku dhiso. qodobka labaad islaamku uu ku dhiso akhlaaqda alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar. dadku inay xumaanta isku diidaan wanaagana ha isku sheegaan. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. amru bilmacruufku hadduu yaraado ama qaabka loo sheegaya uu fool xumaado waxaa meesha ka baxaya dadku inay akhlaaqdii ay keli lahaayeen ay ka helaan. dhibta jirta dadka marka laga wacyigeliyo dadku cala alaqal dee qofkii samaynayaana uu la dhuumanaya kii samayn jirna markuu arko dhibtaasi uu barto dhibtaa wuxuu kala kulmayo uu ka soo noqonaya. waxaa kaloo kamid ah islaamku uu ku kordhiyey uu ku kobciyey akhlaaqda tusaalayaal buu keenay. ilahi wuxu uhi subxaana watacaala watilka lamthaalu nadribuhaa linnaas. waa tusaalayaal aan dadka usoo bandhigano. tusaalayaal badan buu kasoo sheekeeyey kuwaas waa tusaalayaal aan dadka siinano. maxaa laynooga sheekeynaya ummad nebi nuux dadkiisii maxaa laynoogaga waramay akhlaaq xumadii ay sameeyeen sida ugu jabeen. nebi kasta dadkii la noolaa maxaa laynoogaga sheekeynaya tusaalayaasha maxaa laynoo siinaya waxaa laynoo siinaya xumaantii ay samayn jireen si aynu uga durugno wanaagyadii qayb kamid ay samayn jireenna si aynu ula nimaadno. maxaa kaloo islaamku akhlaaqda ku dhisaa wuxuu ku dhisaa almawcida in dadka la waaniyo dadka ma xukumo oo maaragtay islaamku intuu xukunka gacana la jaro iyo maaragtay hala karbaasho islaamku maaha. islaamku waxa weeye waxaas waa xumaan dhibtaasaa ka dhalanaysa qofka sameeya saasaa ciqaabtaasuu leeyahay hala iska daayo. almawcida joogto ah ayuu la imanaya. ilaahay baa yidhi subxaana watacaala mawcido ayaa dhinaca ilaahay idinka timid. maxaa kaloo kamid ah alqudwa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waynu barnaamijyadeennii hore kaga soo warranay akhlaaq siduu u ahaa akhlaaqdiisu sidii qur-aanka u ahayd ku dayashadiisa. ilaahay baa yidhi qad kaana lakum uswatun xasanatun fi ibraahim. ambiyada waxaa idinku sugan nebi ibraahim iyo de ambiyadii kaleba iyo nebigeenaba waxaa inoogu sugan ku dayasho wanaagsan baa inoogu sugan. marka islaamku kuwaasuu ku koriyey ayuu ku koriyey dhaqanka wanaagsan.
marka dadku salaadaha la yimaadaan cibaadooyinka kala duwan la yimaadaan akhlaaqdoodii way koraysaa dadku markay la yimaadaan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar way koraysaa akhlaaqdoodii tusaalayaasha quraanka markay u fiirsadaan way koraysaa akhlaaqdoodii way kobcaysaa mawcidada iyo waanada dadku markay wax isku sheegaan in la isku cadeyn qofka maaragtay haddaad xataa u naseexaynayso inaad gaar ula baxda ay tahay iyo nabigoo lagu dayda calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qudwe inoo ahaa muxuu qudwe inoogu noqday nabiga caqli calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku galladay caqli aada u heer sarreeya oo bulshadii ula noolaa intaanu nabiga ahayna hay ka yaabi jirtay ka heli jirtay markii waxyigu u yimidna markaasi uu qiimo gaara sii yeeshay ayaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam nin dulqaad badan buu ahaa oo maaragtay dhibta dadka kasoo gaadha u adkaysta oo nabigu dadka u dulqaata dadka cafiya buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caan ku ahaa deeqsinimo ayuu caan ku ahaa iyo maaragtay sooriyeyn ayuu caan ku ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam geesi buu ahaa oo nin maaragtay baqda muu ahayn kelmadda xaqda ka baqda muu ahayn sidoo kale haddii dagaal iyo dhib ay timaadana nin baqda muu ahayn nin xishood badan buu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadka si fiican ula noolaada oo dadka siduu ula nool yahay nin kasta oo u yimid oo weligii nabiga xasaasiyad ka qaaday muu jirin asxaabtu hadday 20 kun ama 15 kun ama tiro badan ahaayeen nin walba gaar buu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu uga warhayay dhan wuxuu lahaa ballantuu oofin jiray nin aada isku dhuldhigid badan buu ahaa cadaaladiisaa sarraysay nabigu adduunka ayuu ka saahiday ilaahay buu xoog uga baqan jiray akhlaaqda nabigu calayhi salaatu wasalaam kala duwan faraha badan leh waxay dadka ku sanduleysay inay dadku nabiga ku daydaan calayhi salaatu wasalaam marka inahaas ayuu islaamku oo akhlaaqda ku dhisay aqulu qawli hada astaghfirullah alazim intaasina ku daynaa barnaamijkeena qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber